een magaalada xaalad xun baa ka dhacday kolley waan ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu ka samata bixiyo ummadda Soomaaliyeed ee meesha degan inuusan ilaahay dhibaato u keenin saad u ogeydeen baa madaxweynihii hore ee dowladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar isqabsi dheer iyo dabadii wuxuu madaxweynuhu iska dhiibay xilkii oo uu is-casilay isagoo u daneynaya ummadda si walbaba ahaatee madaxweynuhu xilka wuxuu ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenkiisii Axmed Cabdi Ilka Case asaga ayaana muxuu hadda madaxweynaha deegaankaas ku meel gaara isku dhici dhacay maalintii dhaweyto ciidamadu soo galeen magaalada isku dhici ka bilowday dadka shacabka ay gadooday waxyaalo badan ba xag iyo xagaba ka dhacday hase ahaatee maanta tii ma taagna oo madaxweynihii haddii la haystay ama dhibaato sameynaya Cabdi waxa weeye hadda uu ka baxay si nabadgelyo nooga soo tagay isagaana iskiiga soo tagay Addis Ababa jooga san xogta ku hayo maanta magaalada Jigjiga marka dadkii saddex bay u qaybsameen nin wanaag sameynayo doonahay ummaddu inay nabadgelyo ku noolaato oo wanaag rabo oo la war isdajiya wax qalalaasi iyo buuq mar waa dhici kara laakiin waxaan Ilaahay baa qadaray buuqa inaga daaya oo aan nabadgelyo ku noolaano iyo in balaayo sheego oo doonayso inay weligeed wax burburiso oo dab kicinayso iyo in jaha wareertay oo shacab meel ay ku hagaagtaba garan la magaalada Jigjiga maanta way degan tahay shalay madaxweyne Axmed Ilka Case uu hadlay wuxuu yiri war xafiisyada waa shaqo bilaabayaan dukaamadii oo dhan hal furo magaalada nabadeedii ha lagu soo celiyo ciidanka militariga meesha joogana cidna waxba yeeli maayn cidna waxba lama dilahayo wixii dhacay ee shil ku dhacay wuu dhacay laakiin waxa hadda taagan wax dhacay ma jirto ciidanka liiyo booliska xirooday ku jiraan nabadgelyo ku joogaan magaalada dadku baahiyaysan u dhamaanaysan dhibaato dhicin inagu yeenan isqixinine magaalada hal furo dukaamadeedu madaxweynuhu shalay ku qodbaday iyo Stephen daawaneyseen mooyaan garaadadii iyo magaalada salaadiinta joogay way hadleen waxay yiraahdeen magaalada sidaas oo kale u hadleen oo yiraahdeen magaranaysaa nabadgelyo iyo aan ku joogno oo magaalada yaan laga qaxin oo yaan la islaynin taasina waan soo dhaweynaynaa laakiin dad baa doonaya meediyaha Jigjiga khadku ka jaran yahay oo leydkii baan jirin leydku meeshu dagaal ka dhaco waxba ku guban kara leydku waa la gooyay leydka hadii la gooyay internetna waa tagaya war dadka meediyaha jooga ee halkan jooga ee intay soo share gareeyaan fiidiyoyadii South Africa la isku leeynay ama kuwa Kenya ka dhacay intay soo share gareeyaan ku qorahaya waa dowladdeegaanka waa dadkii deegaanka oo la leeynay xamaara leeynayso walaalayaal dad baad hurinaysaan ummad baad meesha ku leeynaysan sidaas ma xaaladu magaaladu way nabad qabtaa magaalada waxaa lagu amray cidna inaysan ka qaxin dhanka wajaala loogama bixi karo dhanka dhagax buuran loogama bixi karo magaalada ammaankeeda la doonayo dadku waa maati ma qaxi karaan inay meeshooda joogaan wax dagaal iyo wax rashbad iyo wax balaayo ka socotana ma jirto baajaajadu ingeed bay ku shaqeynayaan baajaajadu way shaqeynayaan maxaan ku raadey dukaamadu way furan yihiin magaaladu way isku socotaa dadka meediyaha fadhiya ee fadhi ku dirarka ee doonaya inay dadka qaxiyaan war Soomaaliya inta 30 sano burbur iyo dagaal ku jirta wad ogtiin maanta inuu maalin walba qarax ka dhacayo dadkan haday qaxaan qaxisaan xageed geenaysan ii sheega waa qalad ilaahay Soomaali way nabad ha ku soo dabaalo wadankii dhanaaba burbursano 10 sano maxaa 30 sano dagaalan ku jiro oo qax iyo balaayo la taagan yahay walaale wadanku waa nabad wixii dhacay buuq ahaa iyo wixii dhacayna inqilaab waa iska dhici karaa ama buuq waa dhici karaa wax xaq alla ka yimid u qaata haddana xaaladdu dajiya waxaan idinkula dardaarmayaa oo idinka codsanaya oo ummadda deegaanku dadka maatida iyo dadka aan tabar lahayn in meel u qaxi karin in meel u carari karin ay idinka doonayaan kaliya nabad bay idinka doonayaan kaliya meediyaha waxba laga ololiyaa meediyaha waxna waa lagu dajiyaa waxna waa lagu ololiyaa afku xabadda waa ka daran yahay dadka doonayo inay wax burburiyaan ee ololinahay ee balaayo soo sheer garanay oo onag baa nagu soo duushay Oromo baa nagu soo duushaydahay warnimay Oromo waa la isgarab deganaa waligeed waatan waa la isgarab deganaa Oromo xaq baaban ku leenahay luqadeeda Soomaaliga dhan baaban u qorayba oo boorama meesha lagu qorahay dawladii Soomaaliyeed baa u qortay war dadka inuu soo garab istaagnay walaal la yahay la isgarab taagan yahay oo malaynaya waxay shalay ay ka cararayeen maanta inay dadku sameynayaan ee siyaasadun baa meesha taala iyo jalfis xuna waa lagu wada dhacay dadka dajiya deegaankan Soomaali baa iskala nin walba deegaan buu leeyahay nin walba wixiisa buu leeyahay nin walba wixiisa uu haystaa iyagu waxooda way haystaan walaalayaalow dadka nabad bay u baahan yihiin nabad hal la dajiyo Oromo haday Jigjiga joogtay way qaxday wada aragtay wajaala ka wada talowday
qabtii dhacay waxay dadkii wax laga boobay axmaar ay u badan yihiin iyo dadeen soo gaarin oo 30 sano iyo 40 sano kula noolaa dargi inta meesha ka carareen Soomaaliyoobay oo in hebel ku garanayo in hebel u garanayso oo magacyo Soomaali la wada baxay oo Soomaaliyoobay oo kula nool baantidoodii waxoodii la dhacay oo hebel iyo hebel la leeyahay oo ku haboonay waxaan in la sameeyay maysan haboonay haatan iyo dan waxa umada deegaanka doonaa in nabad lagu noolaado dagaal wax faa'iido u keenay ma jirto horay loo baabay dimuqraadiyad waan u baahanahay dadku inay isku furmaan oo loo kala xidhin kana siyaasad kala wato iyo kana siyaasad kala wato oo wax lagu farxo waan wax maanta deegaanka ba sameeyay Ethiopia oo dhan ka dhacay oo Addis Ababa oo alif calaamadeedii fanaadaha la wada xiran yahay oo shir lagu qaban hayaa taas naftigeedu waa guul u sugayto umada waa ay walba burush xarlon baa la ismarinayo soo la soo dabordahay waxaas uu dhamaaday adigoo on alifa adigoo Soomaali weyna adigoo meesha doonto ka imaatay xornimo ugu noolo oo hadal inta qofka hadii aad hadli karto oo free u hadli karto oo waxa doonto sameyn karto intaas ku filan walaal marka waxaan idinka codsanayaa hadii ay jirto walaalnimo hadii ay jirto maxaan ku raadayay dirnax ummadda Soomaaliyeed dad u dirnaxaysan dadka meesha jooga dadka media ka bambuurinay inuu meesha xabad dadkii lala dhacayo walaalayaal oo been baad sheegaysaan dad wax xabad lala dhacayo ma jirto ummadda deegaanka joogtay baa hadlaysa 24 hours baa telefoonka khadka la isugu jiraa waxaasi wuu dhacay qabiil iska daaya ilaahay baa idinku cadaabi iska daaya qabiil Soomaalilima idin deeqda kaliya dadkan aad la nooshiin wax la qaybsada wadankiina haysta hadii aad cabdi nabcaaya hadaad cabdi nabcaayda ama siyaasad uu aad isku qabateen oo wadanka ka hareey war maanta jigjiga u tag adoo nabada orod maxaan ku raadayay xisbiga ku soo biir ama xisbiga ay kala la tag wax isriixay hadda ma jirto waxaan anu aaminsanahay haday siyaasad jirtay la isku hayay way dhamaatay waxaan la hadlayaa haddana aan rabaa inaan si gaar ah ula hadlo nimanka xilka hadda haya ee xisbigii jooga ee xilka dhink waliba madaxweynaha hadda xilka loo dhiibay Axmedow madaxweyne xilka Allah kugu astiro laakiin hal ogow hadii cabdi dadku ay nabcaayeen cabdi la dagaalamahayeen maanta aad barti jooga hadaba shalay cadow lahayn maanta kun cadow baad yeelan doontaa xilka ku keenaya shalay media dadka qaar baa jira intaada xun wada intaada sanna inay soo saaraan ay meesha keenaan marjeen la ayaguna qabqabta jirta iyo dagaalka iyo buuqa jira ilaahay baan ka rajeynayaa inuu damiyo ninkii siyaasad iyo siyaasad isku qabteen madaxweynihii hore meesha ka tagay u yeer adigoon u daneynaynin siyaasad adiga taa ah adigoon u daneynaynin shakhsiga la siyaasadii u danee ummadda deegaanka qof walba oo banaanka deegaanka ka jooga ku darmaayo ururka oo an alif in ka badan 30 sano ay banaanka jiraan waxay u dagaalamayeen wada hadal iyo hawshooda ayaga u taala oo anigu halkaas faragelmay siyaasiyiin laakiin dadkii deegaanka joogay ee siyaasad u kala tagay hadda u yeer ayadoon qof la xaganaynin ayadoon qof la waxyeynaynin dadka ummadda meel walba joogtay ee deegaanka ee siyaasad u tagtay hadda u yeer ninkoon alfnimo ku maqnaada de taasi wax weyn baa laga sugay weeshiis ha joogo laakiin kuwa nimanka dirraba jooga dulmidiid siyaasiyiinta kale isla jooga dhamaantood u wada yeer urulaalayaal wixii shalay dhacay wuu dhamaaday maanta inaga soo inaan wax sameysano dheh taasaan anu kugula talin lahaa oo inaan lays caayin iyo inaan wax la soo farfarin inaan hebel baa saa maalin yiri hebel baa saa wax yiri aan la oranin war dadkaas isku wada yeer baan qoran lahaa ummadda deegaanka waxaan ka codsan lahaa dhamaantiin oo si kale laab waliba idin ka codsanayaa dhammaan deegaanka bas deegaanka dhan ma wada ah markii jigjiga xagaa looga baxo ilaa maxaan ku raadaa maxay ahayd qabri bayax waa nabad wajaale marka jigjiga saa uga baxdo waa nabad waxa kaliya buuqu ka taagan yahay waa jigjiga iyo gudaheeda jigjiga gudaheedana ummad maate ah ummad aan waxba haysanin ummad aan dagaal diyaar u ahayn baa ku nool ninkii cumaqoor haysta ama gaari haysta ama hanti haysta isla waxba maartay waxaan idin oran lahaa dadka dajiya ummadda yaan la barakicinin qof walba nabad buu wax ku yahay nabadaas baa ina wada deeqda kaliya ciidanka qarankuna mid soo guuray ma ahayn iyo mid meel kale ka yimid waa kii sii joogay walaala waligiiba uu deganaa ciidanka qaranku nabadgelyada inuu sugo oo dadka kale celiyana waajib baa ka saaran
hadday qaban waayeenna way guteen maxaa lagu kala joogay ciidanka qaranku waa shaarka kaliya ee federalismka lagu yahay ee dadka wada ilaaliya hadduu kaasi ummadda kale celin waayo dee muxuu qabanayaa kale waxba qaban maayo marka waxaan idinka codsanayaa oo walaaltinimadii ka codsanayaa inaydan deegaanka goyn wasiiba waliba caasimadda aydan goyn intaasaa la dhisahayay intaasoo sana caasimadda hanti lagu bixiyo oo wax lagu bixiyay wax yar iyo haddaad ku burburisaan waa dhibaato ma South Sudan baan noqonaa maxaan ku dhahdaa ma carabtii burburaysa inaga iska dhigaysa baan noqonaa war caqligiinu ha shaqeeyo xaqu dirar waa la yeelan karaa ururka muxuu ahaa jabadawn alif wax badan bay dagaalamaysa wax badan bay u maqneed sibuu xaqeed u dilaacay oo dadkeedii iyo dadkii laga xanibayay baa raacay tii horena waan cambaaraynaa caburuska dadka ku haysay maanta waxa taagan laakiin onalifna caburus lagu maayo ra'iisul wasaaruhu hadduu cadeeyay inuu onalif wada hadal la yeelanayo masiirka ummadda ay u dagaalameen ay kala hadlayaan waa soo dhaweynaynaa anagu fanaaniin baan ahay anagu siyaasi mi fanaan baan ahay ummadda Soomaaliyeed laakiin way taabanaysaa markii dalkayga iyo deegaankaygii ummaddaydii aan arko ayagoo ama qof dhimanaya ama gubanayso ama dabka dhac diyaar uma imana rabo ma ayagaan wax ku ahay ma doonay inay magaalada jisho gubato ma doonay inay dadka dhamaatada alaayo ma doonay waxaan doonayaa inay noolaadaan ay qurux badnaadaan baan anu doonayaa taasaan aniguna wax ku ahay idinkuna aad wax ku tihiin marka waxaan idinka codsan lahaa midnima in wada deeqda midnimadu waa waxaan la soo celin karin adigoo on alifa adigoo DDS ah adigoo Soomaali galbeeda adigoo dulmidiida wax dulmi rabo horta ma jirto magaca dulmidiid ninkii yiraahdo waan ka soo horjeesanayaa horta waa qalad nin dulmi rabo ma jirto laakiin war fikirkaas adigoo dulmidiid aan dulmidiid baan laakiin fikirka aad u wato waxa ka khaldan aan saxno ee kaalay taas waa muhiim war ma garateen wax dulmi rabo ma jirto adduunkan dulmi wax u tarhaya ma jirto war ma fahanteen Soomaali baan ahay Soomaalinimada ay deeqda Ethiopia waxaan isku darsanay waa dad baan isku darsanay oo dhaqaale naga dhaxeeya ummad baynu nahay ma garat Tigray waa Tigray Oromo waa Orom Soomaali waa Soomaali Benishanguul Ahmar waa sida kadalika khariirada Ethiopia oo dhan markaad saa u eegto markii la kala qaybiyo gobolada istidiyada markii la kala qaybiyo meel ay Ethiopia ku qoran tahay ma jirto waa qowmiyad isku wada yimid haddii la kala dhaqaaqo walba intiisu la dhaqaaqay laakiin markii la isku wada yimaado dadku ku baa Ethiopia lagu yahay waa magac kaliya ka dhaxeeya qof ay ku guduntahay halka kaga qoran tahay midna ma jirto marka Soomaali baan ahay deegaankayga baan haysaa cidaan wax la qaybsanay cidaan la noolaanay ama la nooshaa nabad kula noolow waxaaga hayso talahaan baan idiin soo jeedinayaa dagaalku ma wanaagsana wallaahi inuu soo wanaagsanay hadduu dagaal wanaagsan yahay hadduu dagaal wax tarahayo 30 sano bay Soomaaliya madax la gashay urula yaalo haddaan anaguna hadda dagaal kicino tan waan ololaynaa daban qorada geelina Ethiopia kale Soomaaliya ayadoo awal bay suuraysaa waana sii hurunay xaq ayaduna waa sii hurunaynaa hubkun baa inooga soo degay cidaan doonana hubku iga hor istaaga madaxa bambaf qaraxyadun baa isqabsani geeska Afrika oo dhan olol baa taaban marka bum maxaa marka la faa'iiday yaa faa'iiday marka cid faa'iiday ma jirto Oromana dagaal dan ugu jirto Ethiopia kale dagaal dan ugu jiro qoraallo waxaan ku arkay halkan ay soo qoreen dhalinyarada qaarkood Ethiopia dooni mayno cid doon kula ama kugu qasbisay ma jirto fikirkaaga hadda aad aaminsan oo xor baa tahay laakiin ilaahay ma fasixin mana kuumana ogola mana xalaalaynin gaali muslim ahaada inaad qof disho kuuma xalaalaynin Soomaabo maya way tir gabadheeduna ay u raacday maya marka waxaan ka codsan lahaa inaydan abo macaan inaan dab la sii hornin inaan deegaanka la gubin in ummadda deegaanka ku nool ee wali siiba magaalada Jigjiga dad dan yar oo maatiya ku nool inaan la burburinin baan kula talinayaa Oromo waxay shalay ka dagaalamaysay Soomaali kuma sameyn karto deegaanka kuma sameyn karto Riyaal Xamid habeen sii hore markii ay meesha u qabsaday abi live uu soo galay oo dadka la hadlay eray waxaan ka qoray haddii ay Oromo kursiga oo maaragtay ay ka kacsanaysay Tigray haddana anaguna maruma ka kacsan doonaa sheekadii uu ku keenay marka halkan waxba soo dhigi maayo laakiin sheeko fiican bay aad murti ah marka waxaan kula dardaarmayaa magaalada Jigjiga maanta waa nabad ciidanka qaranku wuu joogaa waxba ilaalinaya oo dadku kala celinaya ciidanka liyo booliska aan xiriyooda ay joogaan
dadka magaalada lagama qixi karaa la yidhaha la deganaada dukaamadii waa loo furay wax walba sidoo siba kusoo noqday waxaana ilaahay ka baryahayaa in ay nabadgelyo waarto ay sii socoto oo dadku ay meeshooda ay nin walba ku nagaado oo maxaan ku rahdaay ay sii socoto nabadu xukuumadda hadda jirtana haddii de madaxweynaha cabdi madaxweynihii hore dowlad deegaanka cabdi maxamed cumar hadduu ama dagaal waday ama rashadbad waday haddii xilki waa ka degay wuxuu ahaaba maanta xun iyo sanba cafis in la iska cafiyo ciddii xawaasana ha cafiyo ciddii dambi ka galay ha cafiyo wuxuu wanaajiyay waan uga mahad celinaynaa ha la is cafiyo madaxweynaha ha la cafiyo madaxweynihii hore deegaanka la cafiyo haddii de aad caloosha wax ku qabto oo aad maaragtay de dhibaato badan oo aad ka tirsanayso dee maanta waa walaalkaa wixii dhacay qalad waa dhacay laakiin lama soo celin karo intaas ahaan baan aaminsanahay waxaana rajaynayaa ciidanka liyu boolisku inay ogaadaan ummadda deegaanka masiirkooda ummadda deegaanka iyagaa ciidan u ah inaysan dab kusii hurinin inay ilaaliyaan inay xiryahooda ku jiraan inaysan dagaal bilaabin haddii ay ka fursan weydo ay arkaan inay xaalad kale isku cakiranto dee baakab ha joogaan ummadda deegaanka ha difaacaan laakiin eega inay isku dayaan in nabadda dejiyaan waxay waxa uu ciidan u yihiin waa ummadda deegaanka tabarta yar kuwaasay ciidan u yihiin madaxweynaha hadda joogana siday madaxweynihii hore ula shaqeynayeen si lamid ah ula shaqeeyaan saasaan anigu ku dardaarmi lahaa magaalada jigjiga waa nabad waad mahadsantihiin wixii hore ay soo gaadhay videoya ay la iisoo dirahayeen sugahayeen oo maanta magaalada jigjigana hadday isoo gaadhaan inkastoo khad la-aan yihiin waan idiin soo daraya insha allah haddii la yidhahdo waan idiin soo gelin doonaa waxaan doonaya kaliya usoo galay waxaa weeye inaan idiin sheego magaalada jigjiga inay nabad u baahan tahay nabadna tahay laakiin media dadka ku jira doonaya inay dab kiciyaan eele madaxweyne cabdi baa la afduubtay haddaa la soo celiyay madaxweynenimadiisi uu kusoo noqday sidaas maa xaaladu waa inaad wax fahantaan clickta iyo websaydyada iyo streamka youtube-ka intaad isku xidhateen bajajka aad doonaysaan in ladiin daawadeed kharash ka samaynaysaan ummaddaanada mar inay koolisha raalli ahaada 100% raalli ahaada magaalada jigjiga nabad baa looga baahan yahay intaasoo milyan oo bir baa ku baxday guryeynteedii iyo waxaynteedii dhisideedii war maanta haddii dabdabada laga geliyo la burburin annagu baa wax iska burburin oroma waxba lagama burburin hal oroma amaba jooga magaalada dagaalka dhacay waaba ka qaxeen ciidanka qarankuna oromo ma noqon karo ciidanka qaranka dhan ee isku jira oromo ma noqon karo jigjiga hadday olosho dir dhabana waa ololi soomaali baa labaduba degan iyo oromo waa la wada degan yahay dir dhabana ha burburinina jigjigana ha burburinina ummadda danyartaana ha burburinina intaasaan idinka codsanayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantihiin haddaan gafayna shaydaan baa ka adeegtay raalli ahaada haddii qof codki hadalkayga ka xumaaday meesha idinku jirana walaala raalli ahaada waad mahadsantihiin mar walba waxaan jeclahay deganaanshaha ummadda jigjiga nabad waarta ayaan ilaahay uga rajeynaya waa nabad garaadada iyo ummadda joogta garaadada waxaan intaan ka bixin waxaan la hadlayaa garaadada iyo salaadiinta iyo odayaasha jooga magaalada dirdhaba waxaan idinka codsan lahaa aan mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanayaa shalay wixii dhibaato haddaa dhibaato badan tirsanaysa inuu dhib laydiin geystay maanta madaxweynihii waa isbedelay deegaanka inaad tagtaan baan rajeynayaa xukuumaddii hore dadkii ahaayee meesha xilka hayana waxaad siisaan waqti yaan lagu bilaabin dagaal iyo bahalkii taga oo dadkiina hadaad wax u qabanaysaan oo bahalkii aad sameynaysaan oo deganaansho ummadda kusoo celiya la safta madaxweynahan cusubna u caddeeya inaydan isaga dagaal kula jirin inaad doonaysaan ummadda masiirkeeda in la helo si wax wanaagsan in la helo horumar lagu tallaabsado oon la iscaburin intaa kaliya inaad doonaysaan doorashadu waa xor baad u tihiin waa idiin bannaan tahay shirarkood geli waa sidaan anu qabo fikran anu qabo ma aaminsani qof baan anugu siyaasadiisa nebcahaye adiguna nac ama taas ma aaminsani ummadda deegaanku ha iska ilaaliso shaksi nin jeclaysi oo qofka ninkan aad jecel ninkan aniga ila nac iska ilaaliya waa ceeb aad iska ilaaliya mar hore wuu inagu soo dhaca hadduu xukun hore ahaaye hadduu tblf hadee waxaydba inaga ilaaliya war eega qof walba waa soomaali qof walba deegaankan u dhashay miidiyuhu waa xor qofka afkiisu waa xor ha laga dhigo qofka haddii xor laga dhigo afkiisa uu hadli karo neefta kasoo boodaysa wax calooshiis ku jiraa banaanka imanaya dee waxba ma samayn karo kursiga aad joogto haddaad madaxweyne tahay qofkan banaankiisa hadduu ka hadlo uu calolfayoobaanaya mooyaan inta kursigaa ku yimaado ka dhaqaaq waran maayo kursigan ku fadhiisanaya taas aamina xildhibaanadu iyo maxaan ku rahdaay baarlamaanka deegaanku naf isu yeela oo hadla dadka aad mas-uuliinka ka tihiin inay xor yihiin u muujiya idinku inaad xortihiin muujiya deegaanka xornimaa loo baahan yahay laakiin looma baahna in la iscaburiyo keliya
وما بهنا شلي وحيد أنا أمسن إن سياسيين تكسر شيء مبدأ مدعوينها إني ماشي كعرين ولا غير يرسبطوا معين تاسن أنا ورا لك ما هين إذا كون رالي كم تهينا وحكي لهم بدرتان ويان ما أنت فري على إسكاليو فري لايف قفل بود شيء وشو قفل بود يجي شو فري عنه نيك شغالة دولة دي ساوي شغال نيك سياسي دي ساوي كذا كي دكتور نمدي ساوي كذا كي عيدا كي ساوي كذا باش هاي العليو نيك الدكان ما يجنح سدي ساوي العليو سياسة سدا هو كلا صعوته قفل وحيس هاي العشرة لكن يسنقون إن كرسي سياسة كلية وضعنا قروايدين ما العليا واد ما سنتين بالنما وحلوية هاي أنا جو علي وحان عدينيا أنا جو علي دانتا وحان عدينيا في الناس الصومالية هدي أنا اللي في الشارع اللي يسكوي هاي أنا اللي فاتحيرتها أنا اللي في باكنا ورانا اللي في الشركة أي قبصنا يسو هدي أنا والشخصين هدي وسع عشتان وادين مانيا وذكر السوق الجلية من ما وحلوية هاي من ما ذو مدة الصومالية من دنيا من مدة ديان كان دنيا شركة كدعاية ستوكهولم أنا اللي في قبصنا يسو ولا الله إلهي هدي كوجوليو شر ونكسر قرب بدن بعدين رجينيا دتك أنا اللي في الشارع كذا حرنا دبك هورنيان هيسكدايان كوا ديان حرنا شارع كذا دبك هورنيا هيسكدايان كوا سومال واحد كلا أمسنا سومالي قلبي ده أيجنا دبك هورنيا هيسكدايان كوا سومالي وين أمسنا دبك ديان كهورنيا أيجنا هيسكدايان وردبك قف كهورنيا واحد وفايدة كينه يمشرت واحد فايدة وكينه يمشرت دبعته مويان واد ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وعلي بان هاي من نمو ينبض بان يكون باقيا من نمو ينبض وأنا سمعين دونا تور يحفلون نيروبي دان تجنا حفلات بكو قبل دونا من نمو إن شاء الله وهذا اللي هذا ما أنت وحنو تاجن تحب من نمو واحد كويد ريب الكويل مس نفع حرام بكت واد ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ما سنتين وأنا عمرك دم إن شاء الله